waxay ahayd dhacdo naxdin leh, dhacdo markii la soo wariyey qof walba uu ka naxay. dabley hubaysan oo ka gudbay gobolka Galgaduud ayaa gudaha dawlad deegaanka ku dilay 5 carruur ah, mid kalena way ay dhaawaceen. carruurtan ayaa dhammaantood ahaa kuwa aan qaangaarin. goobta wiilashan lagu dilay waxa ay ka tirsan tahay deegaanka Qorof, santarka ka handhaale oo hoosteeya degmada Galaadi ee gobolka Doollo, gudaha dawlad deegaanka Soomaalida. carruurtan waxaa la sheegay inuu ugu weynaa wiil 13 jir ah. waxay markaasi ka yimaadeen goob aroos ah oo baadiyaha ku taallay, waxayna seexdeen meel u dhow meeshii ay dugsi quraanka ka dhigan jireen. maleeshiyaadkan dilka geystay ayaa waxay daba socdeen wiilashanna u laayeen aano qabiil oo kala dhexaysay reerka ay wiilashan ka dhasheen. maanta ayaa wiilashaasi la aasay. xabaasha wiilashan waxaa yimid dad murugaysan. dadkaasi waxaa ka mid ah ardaydii wiilashan ay dugsi quraanka la dhigan jireen, ehelka wiilashan ay ka dhasheen, iyo guud ahaan qoyskii ay ka baxeenba. ma jirto wax ay galabsadeen wiilashan la laayay, mana oga raggan laayay cidda ay yihiin. su'aalaha dilkan ka dhashayna waxaa ka mid ah raggan waaweyn ee rasaasta ku dilay carruurtan naftooda ma ku qancin karaan inay gaareen yoolkii ay rabeen. su'aal kale oo iyadana dawladnimada qusaysa ayaa ah in laga gudbay xadka gudaha dawlad deegaanka ee dalka Itoobiya oo awal adkaa balse hadda noqday meel lagu kala aarsado.